السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبين السلام دمانتين وعبدنا ولكن عبد الناصر ما أنت هالكم وحنا ومرتيا فرحية عبد الرحمن برنامج كن وحنا نقول دونا كل دونا الشهر رجع دمر كمركة نقطة لنا عجيرك ضد وحياة لأن يرى وحياة مسيين هبينكو هالريو إن مجرن السعي قبلها لصم يو حفلة وين إن هوتيلada وقالسن loo kireeyo marka sida halkan ognahayba lacag ka badan 20,000 oo dollar ama ma garanaysaa caadi ahaan 250,000 oo koron gaarayso yaa meelaha qaar lagu kharash gareeyaa dumarkana fikir bay ka qabaan raguna fikir bay ka qabaan marka Cabdiraxmaan baa ku bilaabaynaa fikirka uu ka qabo yaan bal insha Allah ku soo dhaweynaa Cabdiraxmaan Cabdinaasir horta aad iyo aad ma santahay oo ku dhawaad barnaamijka horta arunta dhanka guurka markii loo rag iyo dumarka fikirkooda kala duwan yahay dumarka dhaxdooda xitaa fikirkooda kala duwan yahay ragana sidoo kale صح fikirkooda kala duwan yahay marka ani ahaan marka ka hadlo fikirkeyga dhanka guurka macnaha guurka qaabku u dhici lahaa sidoo ku bixi lahaa fikirkey ahaan marka ka hadlo horta way fiican tahay gabadha in haween ama hal habeen farxad loo sameeyo laakiin ma ahan gabadha in markii la guursanayo farxadeeda inuu ku xirto guurkaas inuu si balaaran oo si weyn u dhaco waxa farxad ku filan inay guursanayso qofkii ku haminaysay iyo noloshii hore ee ka baxay nolol cusub ay galayso mana ahan qarash iyo maxaa la 20,000 dollar ani ahaan aad kula hadlayo guur 20 iska daayay shan wax ka badan ma ka bixin lahayn runta diraga Allah okay marka fikirkay waxa qabaan gabadha maadaama ay guursanayso farxadeeda inay ku koobnaato inay nolol cusub ay galayso qofkii haminaysana ay guursanayso صح وقفكي وهمنيس ويكورسنا سالاكيسه كما مرنا فرحتها إن guurkeeda ay ku jirto soo ma ka marna qofka wahminaysa way heshay already balse iidan way ku lamantahay iyadoo qofka ay heshay in aroos qurux badan ay dhigato halkaas si fiican u fahmino faahin kartaa for example kalmanta aan guursanaya wiilka aan ku faraxsanahay guursanaya soo wiilka aan ku faraxsanahay aniga guursanaya hadana waan jeclahay in aroos weyn oo qurux badan ee dadka ay la yaabaan inaan dhigto okay waa waxa ay u dhacdo halka habeen baa lacagta ugu badneed labada family lagu burburini kadibna wixii habeenka ka dambeeyay guriga la soo koobay reer ku dhan wax la amska ahaan hamar aan ka dhaxgalo lacag waa la helaa waan loo waaya so lagu fikiri kaliya ma aha lacagta wax ugu muhiimsan lagu fikir xitaa farxadda habeenkaas maxaa qurux badan maxay gabadhu ku faraxsantaa muxuu wiilku ku faraxsan yahay muhiimadaas inuu weyn la saaro waa kaliya ma lacagta in laga fikiro wiilashana boqolkiiba Soomaalida lacagta bis bay ka fikiraan soo lacagta alxamdulillah xooga maanta ku shaqaysatay oo inta soo lacag ku kaysatay barino ku kaysatay ka badan ina ku kaysata laga yaabo صح soo marka in yar oo gabadha farxadeeda ku saabsan tahay iyada maanta sleeda waa hadan dhaqan iyo caado u leenahay aniga Soomaali ahaanteena in aroos qurux badan aan dhigano maanta dib maxaa la dhahay gabar saaxiiban hano kale aroos kala arag dhigato soo anigu baan jeclahay tii dhigatay mid ka weyn aan dhigto ma jecli kee dhigatay mid ka hoose inaan dhigto intaas aan ka dhaxgalo sada horta gabdhaha Soomaalida hal mid ku arkay midaas ay tahayna hadda soo sheegtay gabar saaxiibtaada aroos dhigatay adigan waad ka miseertay waxa rabtaa in saaxiibkaaga ula tagay waxa leedahay ma ka miseertay sidorta dhageyso waa u tagay waxa leedahay arooska fiican raba arooska macnaha asaga maxad u guursanaysaa inaad arooska ku faanto mise maxaa lahaa qof aan nolosha haminays aad hesha aad guursanaysaa farxadda intaas kugu filan mise farxadda dhan waxaad ku xiraysaa lacagtaas iyo arooskaas qaaliga ah lagu dhigaa may farxaddeeda dhan kuma xiran arooskaas la ii dhigayo mana ku faanayo arooskeyga balse meesha waxa taala xitaa soo aad u goonin bay kugu naqanaysaa waxa kale kugu naqanaysaa like arooskaaga marka la waa farxi arooskeeda waxa waa bublar inta soo qafad ba ka soo qayb gashay maxaa la dhahay arooska uu kala kacsanay niita way dismiss waa walaaniyo qofku jecel baa nolosha la wadaagto maxaa la dhahay oo inta soo wax ku qabta qofkii mor jecel ba u sii qaadaysaaba Cabdinaasir horta mid hadda ku sheeg maarak
dumarka Soomaalida dhahorta markii la fiiriyo ma dhihi karno maanta kulligood isku mid horta iyaan isku wada qaadin dumarka maya ma dhahoy dumarka dhan Soomaalida ma isku mid doon ku dhahoy صح santan far ilaahay Soomaha dumarku way kala fikir duwan yahay ayaga dhaxdooda laakiin tii mustaqbalka rabto waa tii adiga ka fikirto ayadana iska fikirta qofka macnaha hadda maanta gabar aad la socotay macnaha haday kugu xijeyso wax macquul galeen ka baran oo ay ku dhahdo meherkeyga halahaas waaya hadda xujuba ma jirtaba la yakul fallahu nafsan hadii aarra mataqaana maxaa la dhaxaya aroos iyo lacag mataqaana waqti kuma bixiyeen sanad badan lama hadleen sanad badan markuu iga xanaaji uma dul qaadan lahayn ajaasro dad waxa jira laakiin ha ka maqnaysiin kulli dhaxdhaxaad baan ka ahay taa jacayl hadii jiro saas ma waa ku sheegay dad waxaad arkaysaa oo muddo soo socday oo wallahi shilan usan haysan oo aroos yar oo familka dhaxdooda wax cunaan yar isku keenay is guursadaan oo waxban haysan oo mar laga yaabo xitaa hal waqti inay wax cunaan laakiin noloshooda ku faraxsan korna ugu wado صح يا صح naagta sideeda waxa raba horta nin walba oo horumar gaara maxaa leh dumar ka dambeey laakiin ma ahan horumarkiisa asaga aad hore u sii socon lahaa in aad lacag iyo wuxuu hayay dhan hal habeen aroos dartiis aad ugu baabi'iso ma ka wixiisa dhan ma ka khasaarin haddii aad danaynayso waxaa dhihi lahayd حبيبي ميا ها بيبي ميا ها ساعة هذا الكاتو أديك ستين كل دي إن أدهدي عروس كين خلاص أنا وقعدو أنت كلام نقص برجري نقص برجري نورش المستقبل كإلما ما كرو حد بقى ما كرو عن كل خانو إلما إسك إيمانه بلوسي إيمانه يعني ويقول الله شقيني محاول إلما سيج يا إلما إذا الله شقين إسك إيمانه هلك واقص أضو فيري شقينا واحد بن آدم وما تشقر شقاء شقينيس أدوي كرتا ودن كيا وحنا قكرا محاولها شغلان وحول بفيلو لكن هذا ميلكو تارو أنت وحس كهلاوين شغلان دعدي أنت توح كسوجيسي وحلاقي على لعك أسبوع جرينيس إنها تستعمل شو المها تكسي كوريسو أتوحي روان أتوصل